بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا تيفيغا عالميغا كالسن تيفي كالسن تيفي وتيفي عالمية وأدبادنا كديهاتان برنامجي وحكولا وحانا كميدا برنامجي داسي برنامجكا عام بحي اللي يرادو دبكا هدل دبكا هدل وديسو وبرنامجيو تحانا أما قاب مسلسل أصميسان وحاينو مروة بنا جعلنا ينين برشدة وصوب بنينو xaaladaha ka taagan dhulkii hooyo ama dhulka ama deegaanada ay Soomaalidu leedahay dabka hadal waxa caawa igu martiya aqoonyahan aadan jaamac kaahin oo aad badana ka faaloodo arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha geeska Afrika iyo caalamkaba marka hore aadan ku soo dhawow dabka hadal aad baa maasantay Faysal waayahay barnaamijkeena caawa dabka hadal qaybtiisa aynu kaga hadlayno waxa weeyaan waxaynu ugu magac darnay arrimaha ka taagan carre adag oo aad goor walba halkan ka dheehataan waxaan ku soo qaadan doonaa shirkii burburay ee kal hore ama bishii ina weedaartay ka dhacay dalka Turkiga halkaasi oo la doonayay in ay ka sii ambaqaadaan 6 shir oo ka horeeyay Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka la baxay Somaliland marka intaynu u gelin falanqaynta shirkaasi iyo qaabka uu burburay iyo shirarkii ka horeeyay marka hore waxaynu doonaynaa sababaha keenay in ay kulmaan labada maamul aadan ku soo dhawow marka hore ama mar labaad waa maxay sababta keentay ama maxay tahay sababta ka dambayso ama waa ayo cidda shiraysa marka hore horta san socota waxa weeyaan markii ugu horreysay shirkii dhowr sano ka hor lagu qabtay London ayaa lagu qoondeeyay in Soomaaliya iyo Somaliland ay shiraan oo beesha caalamkuna ay markaa iyada lafteeda taageerto marka waxa shir caalami oo lagu qabtay London markii uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh kaasoo markaasi la isku afkartay inay isku soo dhawaadaan Soomaaliya iyo Somaliland oo markaasi ay ku heshiiyaan aan ka dhaxgal halkaasi bariga waxa joogay baan u maleynayaa madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahaa mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ka soo halkii ka sii wad okay taas markii lagu qoondeeyay markaasi waa Sheekh Shariif awarta markaa la isku afkartay in shirkaasi uu sidaa noqdo ayaa markaa shirka qaybtii hore waxaa horta markii hore martigeliyay Ingiriiska marka Ingiriiska martigeliyay oo waxba ka socon waayeen ayaa shirka loo wareejiyay markii dambeeto dalka Turkiga sababta marka Turkiga loo wareejiyo waxa weeyaan Turkiga waxa weeyaan waa dal muslima waa dal dhaqan ahaan aad moodo inuu Soomaaliya arrimaheeda aad ugu dhex jiri karo marka cadaankii waxay soo afgartay markaasi bal in loo wareejiyo Turkiga oo arrintaasi isugu galo marka shirkan Turkiga uu gacanta ku hayo maaha shirka Turkiga kaligiisa maaha waa shirka ay Turkiga ay wakiil u yahay Ingiriiska ay Mareykanka iyo dowladaha Yurubiyaanka wakiil u yahay u joogayso soo hawsha wado waayahay waxaynu ognahay waxaa ka dhacay saad sheegtay Ingiriiska shirkii ugu horeeyay lagu qabtay shir labaad oo kale ayaa ka dhacay xilliga isla markaa uu joogay dawladda ku meel gaarkeeda Sheekh Shariif waxaa lagu shiray wadanka Imaaraadka Carabta tiro laba goor ah waxaa lagu shiray Djibouti oo intaan hadda shirkigan oo burburin Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelo uu martigeliyay maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirarkaasi mar walba looga shirayo ama maxay tahay qodobada ka soo bixi karaya ama la fili karayay maxay yihiin adoo dadweynaha u soo bandhigayo laba iyo mid kamid ah horta waxa weeye qodobada badanaba ay sheegaan inay ku heshiiyeen waxa kamid ah in lala dagaalamo burcabadeeda isla markaasna qoladan loo yaqaano qoladan de al-qaayada la shaqeysa ama al-shabaabka ama qoladan waadan dagaalamaya in macnaha ama terrorist wax loo yaqaano in meel lagu soo wada jeesto oo la iskaashado in arrimaha badda lafteeda haddii doonaya la iskaashado in macnaha si ixtiraam leh labadaba ay isu ixtiraamaan oo wax aflagaada aan isu jeed aan wax aflagaada aan labada dhinac midna ka bixin iyo in badda waxaa la yidhahdaa cirka lacagta cirka markii hore laga qaadan jiray waxaa qaadan jirtay markii hore dowladda Kenya markii Soomaaliya burburtay lacagtaas oo markii hore ay bilaayin ka qaadatay Kenya oo loo soo wareejiyay Soomaaliya marka waxaa isku afartay markaasi in xarunta Hargeysa laga dhigo oo lacagta laga heli jiray hawada Soomaaliyana labada qaybood baa qaybsadaan iyo in macnaha khubaro loo soo diyaar gareeyo labada dhinacba la shaqeysa oo isku soo dhaweynteedii ka shaqeysa taas abada laba adeeg isku afkartay waliba kii ugu dambeeyay Djibouti wax ku daray wax leedahay haddii loo baadana waa in macnaha rag ka tirsan Djibouti iyo khubaro ay soo dhex galaan arrinta waayahay kulley qodobada ka soo baxay shirarkaasi waxay ahaayeen iyo siday u dhaceen dabcan ummadda Soomaaliyeed way ka warqabtaa oo waxa la yiri war la qabo xiisa ma leh ninkii doonay inuu ka dheehdo website-da Soomaalida meel walba ka helaya waxaa jirta magaca loo yaqaan Somaliland
sidaynu la soconno somaliland waxaa bixiyey wadankan aan maanta ku noolay ingiriiska dhulkii soomaaliyeed ee ingiriisku uu gumaysanayay ama dhulkii soomaaliyeed ee ingiriiska ayuu u bixiyey dabcan dhulkaasina waa dhul soomaaliyeed magacan magac laga dooday oo shacabkii soomaaliyeed ee gobolada waqooyi yani ku noolaa ay ka doodeen muusan ahayn kadib 60kii waxaa la qaatay xorriyaddii waa la qaatay soomaaliya yani jamhuuriyaddii soomaaliyeed ayaa la soo raadshay dib ayaa loo midoobay oo koonfuro talyaanigu gumaysanayay iyo waqooyigiisu ayaa midoobay dhibaato badan iyo baaxadeg badan iyo siyaasado iyo isbedel waaye badan oo soo maray kadib qarankii soomaaliya haddana markaa uu burburay magacii somaliland dib ayuu usoo noolaaday dad baa ku doodaya magaca somaliland inuu yahay magac ku habboon in loo bixiyo dadka ku noolaa gobolada waqooyi maadaama ay ahaayeen xayndaab markaa uu dowladda ingiriiska dhigay dad kale oo iyagana isla dhulkaa degan waxay aaminsan yihiin inay ingiriiska ka xoroobeen magacaana magac gumaysi uu ahaa haddii la doonayay in magac la wadaago ama magac dad ka dhexeeyana inay jirto in laga doodo arrintaasi adigu sidee u aragtaa magacaasi inuu sii jiro iyo dadka labada fakar kale aaminsan aragti ahaan iyo ka aqoon yahan ahaan sidee u aragtaa adigu horta magaca guud ahaan waa shantii Soomaaliyeed buu ka mid yahay oo magacii barigii hore ingiriisku bixiyey waxaa Djibouti lafteeda waa taqaanaa barigii hore waxaa loo yaqaanay French Somaliland lafteeda oo ah xeebta Soomaaliyeed waqooyina waxaa loo yaqaanay Somaliland dhinacan kale Northern ama NFG-na waa taqaanaa NFG baa loo yaqaanay koonfurta waxaa loo yaqaanay Southern Soomaaliya waxaa Soomaali Italian baa loo yaqaanay oo magacyo ay gumaysigu bixiyaan oo shantii Soomaaliyeed markaas loo kala qaybiyey ujeedadana wax kale ma ahayn waxay ahayd in Soomaalida la kala qaybiyo oo markaa ay quwad yeelato markaasi dowladaha derisku inay quwad yeeshaan sababta waxaan ognahay waxa gumaysiga ka dambeeyey gumaysiguna hadduu kala qaybinayo Kenya kama kala qaybin Ethiopia ma kala qaybin waxa la kala qaybin waa Soomaaliya waxa kale ma waxay quwad inay dadku yeelan oo marba dhinac macnaha loo si qoloba dhinac loo xukumo dadka u yeeladaan oo kala farqan taas ku dhibaanayay waayahay annagoo ku jirna barnaamijka yani gundigiisii waxaynu doonaynaa inaanu bulshada u bidhaamino somaliland maxay doonaysaa dowladda federaalka soomaaliya maxay doonaysaa horta waxa weeyaan qodobkaasi muhiimka ah meesha yaalla mar walba aan la taabanin mar walba la laxanayo waxa weeye siday ku doodayaan somaliland waxay iyagu leeyihiin waxaan doonayaan goosano ama ictiraaf raadino qodobka kale soomaaliya waxay leeyihiin waxaan doonayaan midnimo wax laado haddaba niyo markaa dib u eegto waa arrimaha aad eegto anigu markaa in badan aan la askarinayay somaliland lafteeda door bay ka ciyaartaa berigii hore burburkii soomaalida sababta waxa weeye markii uu dagaalku bilaabmayay ee ugu horreeyey waqooyi ka bilaabmay dad badan baa lagu laayay oo diyaarada laayeen oo dowladdii Saabar ay leysay dowladdii Saabar waa garanaystay dhaqanka ku dhaqmaysay dhaqan aad u fiican oo fool xun inuu ahaa hase yeeshee markii dagaalka sokay dhacay waxay ahaayeen iyagu markaa qolada keliya dhexaadka ka noqon kar lahayd inay damiso dagaalka soconayay Soomaaliya koonfurta Soomaaliya ama xitaa ay doonto dee caasimada ay soo wari jirtay halkiisa oo ay hayn karto intaasoo jaanis bay haystay jaanisada noocaas ma raacin waxaad moodaa markaa inay ku mintideen uun waxa la waan goosanayaa goosashada haddaad dib u noqdana markii hore dagaalkii ay xoogii hobeysnaa aslantu ay lahaayeen constitutionskooda kuma jiro wax laga goosasho goosashada waxaa keenay keliya markii uu Cali Mahdi maxamed ka dhawaaqay dowladda aniga xukuma oo markaa caydidna uu ahaa nin gacan saar leh aslantu markaas oo aslantu koonfurta madax ka ahaan jiray marka caladii ay caloodanayo markaas ayay markaa ku dhawaaqeen burca ka dhawaaqeen inay goosanayaan laakiin wax ku ajinto markii hore ku jiray ma ahayn in la goosto haddaba haddii aan si kala faaleeyo goosashada haddii qof goosto maxaa faa'iido ku jirta haddii kala midnimada helana maxaa faa'iido ku jirta haddii qofka horta waqooyi haddii ay Soomaaliya ama waqooyi ay goostaan oo natiijada ugu dambeysa la siiyo ay goosashada ay doonayaan la siiyo waxaa noqonayaa waddan la mid ah wadamada khaliijka waddanka Qatar waa taqaanaa Kuwait waa taqaanaa oo wadamo carbeed oo yaryar oo dowlado gaar ah laakiin aan power lahayn oo quwad lahayn oo dee aan la challenge garin karin ama ka hortegi karin Iran kama hortegi karin Ciraaq waa waddan yar oo dee oo la ilaalinayo imika waad arkaysaa Djibouti lafteeda waxa madaxweynaha Djibouti ugu ordayay marba arrimaha Soomaaliya inuu galo waxa weeyaan wuxuu dareensan yahay in Soomaaliya haddaan jirin aan wax quwada ixtiraan isla aanu yeelin marka horta iyaga laftooda haddii xataa goosasho loo galaado waxaa noqonayaa in waddan yar oo quwadahan geeska Afrika sida Ethiopia aan la challenge ama ka hortegi karin dee ama aan maaragtay iska caabi karin noqonaya waddan hoos fadhiya sida dee Djibouti oo kaleeto oo dee aan iska ninkii barbar tegi karin waddan yaroo dee aan awood lahayn buu noqonaya doodan ay markaa ku doodayaan koonfurta Soomaaliya
iyagu laftoodu oo ay leeyihin waxaan doonaynaa inaanu midowno haddii midowga la eego midowga waa quwad waxaan doonaynaa markaa haddii midowga loo ogolaado in wadaa wadan quwad leh oo soo celiya quwaddii hore Soomaaliya ahaan jirtay oo markaa la challenge jiray ama iska caabin karaba dowladaha dariska oo markaa Ethiopia ama Kenya aan oran karin anaga super power laakiin dowladda Soomaaliya ka soo baxay super power taariikhdu waxay keeni kartaa markaas in kuwa la gumaysan laftoodu ay xatraa helaan maanta waa taqaanaa waad ogtahay oo halka wax lagu hore u faalinay in maanta ay dalka dowladda Ethiopia lafteedu siyaasadda cusub ay ku bilowday kuwii la gumaysanayay oo laftooda aanay maanta diyaar aanay laftooda maanta aanay macnaha si la doonay ahayn oo ay doonayaan inay ka faa'iideystaan siyaasadda nimanka ay leeyihiin waa adiga ogaa in markii la sameynayay maamul goboleedyada Ethiopia ay leedahay in dhul Soomaalidu ay tigto oo ay ka mid tahay Nageele la siiyey ormada horey lagu faalinay dhulal kale oo ay leeyihiin degaan dadkan dil labada agteeda degan Soomaalida faraha badan ee u dhow meelahaasina ilaa 3 kiiloomitir dhawaan lagu wareejiyay anfarta marka waxaa moodaa markaas in haddii aanay dowladda Ethiopia aanay quwad Soomaalidu agteeda aanay ka baqaynin inay ku gudaha laftooda aanay ixtiraam yeelin oo dhulkii ay lahayn laftooda dib loo sii qaadanayo oo dadkii lagu wareejiyo way taa waynu soo noqon doonaa dabcan waxaad sheegtay markaad ka hadlaysay dhinaca Somaliland ama maamulka la baxay Somaliland in jamhadii SNM ay goosatay ama ay fakarka aysan ku jirin ajandaheeda inaan la goosan dabcan haddana waxaad sheegtay in yani caro ay ka qaadeen dagaal ama nidaamkii dowladdii kacaanka oo kale nidaamkaas oo kale inay ka caroodeen markaa maan la oran karaynin dadka faraha badan ama ballaaran ee galbeedka ama gobolada galbeedka waqooyiga degan ama gobolada bariga degan ee aan dhexda ahayn iyadoo laftooda aragtiyo kale ama fikirro kale qabeen toodii markaa looma yani eegin ama toodii laguma tixgelin maan la oran karin halkaa horta waxa weeyaan waa taqaanaa dee dowladda siyaad bare waxay sugeystay xadgudubyo weyn bay geysatay dadkan dax ku galaa diyaaradaha ku garaacday way bambaysay dhibaatooyin badan bay u geysatay shacbiga waqooyina meel kastoo lagu duulaba waa dad walaalaa markaa kii lagu duulay kalaba waa dadda xanuunkii kulligood badan qaraya waa dad isu abtiya waa dad isu walaalaa ama dadka galbeedka ama dadka bariga ama dad gudaha kastoo meel noqday kuwa la bambeynaya ama abti ama adeer buu yiri horta qodeedu dadkii way ka sinaayeen oo way wada gaadhay midda kale waxa weeyaan dee dowladda Soomaaliya markaa waxay isticmaalaysay quwad bay isticmaalaysay quwadda ay isticmaalaysay diyaarado iyo maxal taangiye ku isticmaalaysay marka xadgudubka noocaas dadka fara badan lagu laayay ilaa 6 kun qof ku dhintay Hargeysa kale ka dhinteen waxay ku qoran tahay diiwaanada adduunyada ku qoran tahay waxa loo baahan yahay midda kale haddii aan la iska celin lahayn dowladdii markaa jirtay madaxweyne siyaad bare aanu joogay haddii aan la iska caabin lahayna waxuu noqon lahaa dowlad boqortooy ah sababta waxaa la socotaa in uu maxamed siyaad bare u soo waday maslaxa maxamed siyaad bare uu ahaa abaanduulaha ciidanka inuu Morgan ahaa wasiirka difaaca inuu Axmed Jaamac Jangili uu ahaa wasiirka khaarijiga inuu wasiirka maaliyadda ahaa ninkii la oran jiray Cabdiraxmaan laftiisa iyo janaaradii badanna isku xigay marka waxaad arkaysaa inay ahayn dad soocan oo markaa doonaya dowladda inay weligoodba ay haystaan taariikhda markaasi balance la'aantaasi ka dhaxgale adigoo maadsan maan la oran karaynin dadka kale Soomaaliyeedba waa ay ka tirsanayeen oo waxa jiray wax la oran jiray shanta golaha sare iyo guddiga golaha dhexe oo 22 ahaa oo dhammaan qabaylada Soomaaliyeed ay ku jireen oo generaaladu qabiil walba oo ku jiray maan la oran karin Soomaalidu dhan way ku jirtaa arrintaas iyo dowlad ballaaran oo Soomaaliyeed oo aragti hadaf gooni ah leh ayay ahayd maan la oran karaynin بريء هو وجهك تيو بركض كعنك بلا ما يوارثها ولا وجهي لكن أنت دم بريء دم ب هذا مدة مرة سياد برا بركض دور إنه أو كم تقسم قلا سالك عنك أو أما جويرة أما عيناش أما ركض كم كده بيه بالغسالة على ماشي إن مرة حوكي بركض قارو مرة صدي سياد برا سبت حوالي هذا الحوك سياد برا مرة وصلنا هين ده شوين كان مهم كان كل شيء ومسلح محمد سياد برا بركض وها أبندولا عيدا كا بركض لودي أرجعني شوي في ستافكا أما مورجان وزير كي عشان نيجا أما بجان جنجل وها وزير الدفاع dad kale oo markaa wada shaqeynaya oo kala qaadan haday joogi lahayn dee lagama yeelan marka waxaa moodaa berigii dambe ilaa 10 sano ugu dambeysay in markaa intijaarka labaad ka dambeysay dagaalkii in markaas siyaabar aroorsaday oo xogga aroorsaday oo gaar marka ku noqon meel markaas waa khalad dhacay buu ahaa oo xadgudub dadka aqoon lagu sameeyay oo aan la baahnayn buu ahaa laakiin dadka koonfurta ku wada jirintaas dad badan baa jiray oo ciidamada ka tirsan Soomaaliya oo joogay waqooyiga Soomaaliya markaasi oo aan arrinta kala ahayn qaar dagaalamo jireen oo amarka siyaabar qaadanay qaar badan oo kale waxaa jiray ciidamada Soomaaliya ka tirsan dad fiican oo wanaagsan ahaa oo iskooda ugu baxay oo aan dowladda ka inay dhibaateeyaan labada dhinac u jirkaas waayahay dib baan ugu soo noqon doonaa arrimaha iyo falaqeyntooda
weli waxaan ku jirnaa qaybtii siyaasadda aynu kaga hadlaynay shirkii ku burburay dalka Turkiga oo u dhexeeyay maamulka Somaliland iyo Soomaaliya. waxaa jiro arrimo badan oo kale oo iyaga laftooda dadku ay odorasayaan mudane aadan arrimahaas oo ay ka mid yihiin waxaynu ka hadalnay imanka faa'iidada labada dhinac ugu jirta. waxaa jira wax la yiraahdo hadalka ku jiray Soomaali weyn. dad badan oo Soomaaliyeed kelmadda Soomaali weyn waxay u yaqaanaan waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya. dabcan Soomaali weynna sida caadada ah waxa waa 5 qaybood. waayo xidigtu haddii ay laba firiq leedahay ama laba madax ay leedahay magaca xidignimo ma qaadan karto. laakiin marka ay 5 madax leedahay ayay qaadan kartaa magaca xidignimada. Soomaali weyn dadka qaar baa waxay u sii yaqaanaan koonfurta Soomaaliya oo imika waxay ku oranayaan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ayaa shiraya oo Soomaali weyn baa halka lagu mid noqonaya. marka dadka noocaas aaminsan Djibouti haddii Soomaali weyn laga saaray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ama Soomaali galbeed Soomaali weyn laga saaray NFD Soomaali weyn laga saaray magaca ku haboon ama magac martabeedka marka ay labadaasi marka hore midoobay imikana doonayay inay dib u wada hadlaan ma ayna noqon karin arrin lafteeda magaci Soomaalinimadii ama martabadii meel kaga dhacaysa ma noqon karin. horta waxa weeye magaca lagu leeyahay Soomaali lagu leeyahay horta Soomaali siisaba dadku ba Soomaaliya Soomaali marka laga hadlayo qofna qof barti uma magaca Soomaalida wuxuu ku sabaxay macnayaal fa badan la macneeyay qaarkood ku leeyahay niman Arab ay midoo marka sigaan Soomaalida ku leeyahay gel Soomaal marka magaca Soomaaliga horta qofka Arab iska jirta laakiin magaci wala wada leeyahay qof walba magaci gaar buu leeyahay qofna oran karo de qof lagu riixaya horta magaci wala wada leeyahay kaas dadka dhan ka dhaxaya Soomaali weyn waxa sheegay soo dawashada Soomaalida maqnayd laakiin hadalkii markii hore aan ka hadlayno wuxuu ahaa haddii aan quwadii Soomaalida jirtay aan soo noqonin kuwa gudaha la haysto la ixtiraam maayo waligii marka dib u faalinaya lahaa durbayn waxa lagu bilaabay in dhulkii ay haysteen lagu wareejiyo dowladahan kale maxalada aromada iyo anfarta laga qaaday oo ay jiraan ka mid yihiin baabur ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin in andufliyo oo ay ka mid yihiin nageel oo inta laga qaado kuwa lagu wareejiyo marka waxa weeyaan kuwa kale ee gudaha ku jira laftooda ixtiraam helimayaan dowlad Soomaaliyeed oo quwad leh oo sidii hore jirtay aan jirin laakiin waxa loo baahan yahay taas in lagu helo waa in koonfurta laftooda ay ka bedesho siyaasadda hore waxa weeyaan koonfurta waxa la socdaa sidii lagu soo dooray 60kii in madaxweynaha caasimada ay haystaan cid kale aanay haba yaratee wada dhinaca aanay qaadan taa lafteeda waxa loo baahan in laga hadlo oo laga wada laga fadhiisto oo aanay noqonin madaxweynaha iyo madaxda sare in mar walba koonfurta si qaad xaq uma laha dadku wada ku wada leeyihiin isku deegaan weeyaan qof qoy kiimid qof koonfur kiimid qof uu sameeyay madaxnimada qaato marka koonfurta lafteedu waa in dib isu noqoto oo madaxdoonka fara badan ay isku qaadayaan mar walba ay ogaadaan dad kale inay la wadaagaan oo ay leeyihiin waayahay waxaynu u sii gudbi doonaa arrimaha ku salaysan dhaqaalaha ee gobolada waqooyi ama Soomaaliya lafteeda intaynu taa u gelin waxaad ka dhawaajisay in aysan koonfurta Soomaaliya ama Italian Somaliland dhulkii isku oran jiray ay mar walba madaxtinimada iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo caasimadii ummadda Soomaaliya ay wada qaadanayaan dabcan si ay u dhacdo in marka awoodda la qaybiyo oo ay noqoto in waqooyi iyo koonfur wax loo qaybsado ma aynan ka horreyn marka hore in la helo waqooyi oo midaysan waayo waanu sheegnay oo bariga waxaa ka bilowday maamul Khartoum State la yiraahdo galbeedka Awdal State maamul yara ka bilowday imika kacdoonaa ka jira Somaliland lafteedu gudaheedii xisbiyadii ayaa hardan baan ku kala dhex jiro maanan ahayn inta aanan la eedeynin maxay koonfur u qaadatay maamulkii ama mansabkii sare meelan habooneen marka hore in Somaliland gudaheeda ama maamulka Somaliland gudaheeda intuu wada fariisto isagoo oo wada dhan oo maamuladooda wada dhan yihiin oo cadaalad iyo sinaan iyo system loo wada joogo in marka hadaf midaysan laga keeno in Soomaaliya marka loo gardhigto taa ma inaan ka horreeyay inta aan la eedeyn horta waxa weey marka horeysa dimuqraadiyad wax la aado sidii ta ku noqono waxa weeyaan in dimuqraadiyada waxa weey waa in garanaysaay dadku ay macnaha ay labada dhinacba qofka ka soo horjeeda iyo qofka raacsanba labadiiba horta aqbasho haddii aan example ku siiyo markii ay doorashada galeysay Scotland waxa weeye kii ka soo horjeeday midnimada Ingiriiska ku xidhnaa oo isagu lahaa waddanka go'ay maayo iyo kii lahaa waan go'aynaa labaduba miis bay fadhiisteen soo galmaysid labaduba iyagoo fadhiya ayaa arrintaasi falaaqeen oo ka hadleen marka hore waxa ka maqan Somaliland oo aad moodaa in dimuqraadiyadu ay kala dhiman tahay waxa weeyaan haba yaraatee ilaa hadda ma hayaan waa email ay ku wada fadhiisteen dad waqooyi ama Somaliland ah
oo leh war annagu waxaanu raacsanahay waxaan doonaynaa midnimo iyo qaarna waxaan doonaynaa goosano oo wada hadlaya oo wada fadhiisanaya waxaad moodaa in dadkii lagu caburinayo in qof ka ra'yi duwani aanu meesha iman karin taasina wax qalad ah soo garamaysid waayahay haddaynu taa kaga sii gudubno inagoo doonayna inaanu barnaamijka maaragtay dadka dib u xasuusino barnaamijka caawa dhabka hadal waxaynu kusoo qaadanaynaa waa shirkii turkiga ee burburay ee u dhexeeyey maamulka somalilan iyo soomaaliya waxaynu ku jirnaa weli bartamihii barnaamijka mudane aadan waxaa kaloon doonaya in wax kaa weydiiyo hadalka iminka aad leedahay ma jiraan dad reer waqooyi ah oo aaminsan inay ama go-aan ama soomaaliya ku biiraan ama aysan gooni noqdaan oo ayna saani u wada hadal maadaama dimuqraadiyaasi jirin waxaa jira dad miisaan culus ku leh jamhuuriyadda soomaaliya oo magac sare ama mansab sare ku leh oo gobollada waqooyi ka soo jeeda oo ka tirsan dowladda federaalka xildhibaanay ku leeyihiin gaaraya ilaa 50 wasiiray ku leeyihiin aad iyo aad u miisaan culus oo shilis waxay ku leeyihiin rag mutacalimiin oo ku nool koonfurta Soomaaliya magaalada Muqdisho dadkaasi iyaga laftooda mar walba waxay ka hadlaan oo u hadlaan ummadda ku dhaqan gobollada waqooyi inay xaq uga helaan kuwaas iyaga meelan habboonaan inay dowladda Soomaaliya hadalka uga dhageysato sidee kula taaragtayas adigu ma way fiican tahay waa saa u sheegtay waxa weeyaan hortiisaba waxa weeyaan waxaa muhiim ah mar walba in Soomaaliya lafteedu ay aqbasho waayo qof dhibaato u geysanaya oo markaa hargeysa timaado dhibaato geysanaya ma jiro qofka isagoo waqooyinimadiisa wata ayuu haddana ogol yahay wax la hadlo midnimadu marka qofka midnimada doonaya waa qof doonaya inuu waddan quwad la helo marka isagoo meeshiis jooga ayaa loo baahan yahay inay dowladda aqbasho kii ra'yiga ku raacsan kii kasoo horjeeda kii doonaya inuu goosto iyo kii aan doonaya midnimadaba in lagu soo dhaweeyo meeshii oo labadii waa hadlaan sidii isku taalo kale loo baahan yahay laakiin loo baahna mar walba dadkii la caburiyo la yidhahdo adigu Soomaaliya midnimada kasoo horjeedaa in waddanku goosto naga tag oo noo imaysid taas dimuqraadiyad ma hadda markaas waayahay waxaan u gelaynaa arrimaha dhaqaalaha maamulka la baxay Soomaaliland waxaynu ognahay male warshado waaweyn oo wax soo saara male beero waaweyn oo male khayraad gooni oo imika yani muuqda malahan waxaa jiro dhaqaalo badan oo caalamka ugu yabaho dhaqaalahaasi sidee uu soo galaa sideesa loo maareeyaa horta niyo marka run laga hadlaayo waxa weeyaan siisaba Soomaaliya iyo Somaliland marka ay guud ahaanba maanta ku jiraan wadamada ugu dhaqaalaha liita caalamka يعني مركز تاك هذا إنه حوالي وحلو قياس عالم كGDP وحلا صوماليا وحلو قياس 284 GDP per capita حلو قياسي مش صوماليا أكتر هاي 300 سبع بقوليو 740 معنا صوماليا واحد صوماليا دارتها إن كله إلا تضباط معناها العقد يعني دولار كبرير يقف كبير ما حلو لكن مركز صوماليا كسر عملت صوماليا دورت 25 years دولة بلا هاجرين ودد بلا دولة بلا كوا مركا كبعض الكلمة إنه waxaad ula jeedaa Soomaaliya dawladeeda way burburtay dawladda hay awood baan jirin baa jeedaa waaya dhaqaaladan aad loo xisaamin karo meel lagu aadin karo ilaa hadda ma jirto laakiin waxaan qolay Soomaaliland markii intii ay goostay 91kii dhowr sanadood bay xortay macquul maaha in maanta Soomaaliland dhowr sanadood dawlad ahayd maamul ahayd in maanta kamid noqoto dadka caalamka ugu faqrisan la oran karo dawladaha ku liita weeyaan ko ama laba la oran karo wax laga xishoodo waxa weeyaan markii aan eegnay oo baaritaan sameynay bangiga adduunka waxa uu leeyahay dhaqaalaha Somaliland waxa weeye 1 bilyan iyo 4 baa lagu qiyaasaa 1 bilyan dhibic 4 baa lagu qiyaasaa dhaqaalaha guud ee Somaliland waa dhaqaale leeg Djibouti berigi hore ka hadlayay wuxuu dhaqaalaha Djibouti gudihiisu leeyahay waa bilyan laakiin Djibouti dadkooda waa 800 qof 800 kun waa 3 milyan iyo barbay ay sheeganayaan si jeeyaan waxaa sababta dhaqaalihiin waa ka kulito inta waxa si dheer marka lagu qiyaaso dhaqaalaha loo yaqaan GDP per capita loo qiyaaso waxa ay helayaan iyagu qofkiiba loo qiyaaso sanadkiiba 340 wala ayaad yar marka taa loo eego wadamada loo yaqaano sub-Sahara oo laga yaqsado oo caalamku ay u arkaan meelo dhimatay oo habeenada dhaqaalaha baabaasan yahay waxa la yiraahdaa 1500 baa lagu qiyaasaa sanadkiiba inay helaan $1500 per capita baa lagu qiyaasaa sanadkiiba kuwaas baa marka afar laab ka fiican Somaliland marka Somaliland inay meel aad u liidato ay joogto okay inta waxa si dheer oo kale sida bangiga adduunka qorayo
marka GDP-ga la qiyaaso Somaliland lacagtaasi iyaga ah ay helaan oo aniga budgetkooda ay ama ay lacagta ka helaan waxay ka helaan budgetkooda horta waxa weeye Somaliland sanadkan waxay ka dhigeen budgetkooda waxa weeye waa 220 milyan bay ka dhigeen budgetkaas meeshii uu ka ahaa uu kordhay uu ka ahaa 210 wuxuu ka ahaa 2010 wuxuu ka ahaa 40 milyan uu kordhay guud ahaan laakiin waxay daba dhigayaan oo leeyihiin 152 milyan lacag ah ayaa dowladda dhexe ku baxaysa oo loo qaadanaya mushahaaro iyo shaqa iyo mushahaaro iyo wax la siinayo iyo dhinaca ciidamada militariga la siinayo iyo dhinaca security amniga iyo mushahaaraha dowladda ayaa intaas ku baxaysa marka budgetkaas isaga ah badanaa ma ku fargaranayo oo laguma muuqanayo lacag badan oo loo siinayo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka haddii aan sii qaato dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada Somaliland waxa weeyaan Somaliland dhinaca waxbarashada waxa weeyaan waa taqaanaayo iminka dee boqolkiiba 45 ardayda dugsiyada dhexe dugsiyada sare dugsiyada dhexe iyo dugsiyada hoose boqolkiiba 45 waa lagu kala tagtaa inkastoo dowladda Somaliland markii ay qortay aankii aan akhriyay boqol konton iyagu leeyihiin laakiin World Bank wuxuu leeyahay ama bangiga adduunka wuxuu leeyahay 45 baa tagay iskuullada kuwa dhexe iyo kuwa hoose aniga isaga hooseeya weli marka loo eego boqolkiiba 45 baa tagaya sekondariyada waxaa taga boqolkiiba 12 qof boqolkiiba 12 waa aad u yar tahay waxaad garanaysaa in sekondariyada dowladdu ay ka dhigtay lacag oo lacagta dowladda aanay kabin Somaliland marka hadda dadkii tagayay lacagta sii bixinay ay yar tahay laakiin kuwa dhexe iyo kuwa hoose ay dowladda bilaash dhigtay dowladda joogta iminka marka boqolkiiba 45 isla hadda lafteeda uu yar yahay oo waxba jira kule kharashaad yar oo kale oo dadkii aanay laftooda bixin karin marka loo qiyaaso waxbarashada lafteeda waxa leeyahay koob iyo soddonkii ardayba hal macallin baa adigu rashi ahaan ku filan marka la dhinacaas waxa weeye waa dhinaca waxbarashada haddii aan kusoo noqdo waxaa loo yaqaano Somaliland trade deficit oo ah lacagta waddanka dhex socota ee dadku ay ku bacmustariyaan waxaa lagu qiyaasaa 446 milyan sanadkiiba lacagtaasi markii suu bangiga adduunka sheegay waxaa leeyahay waxaa ka mid ah laba qaybood oo keliya qaybna waa dibadda lacagtan dadka dibadaha soo diraan xawaaladaha ay ka helaan qaybta kalena waa qayb kale oo macaawino ay ku helaan macaawinada la helaa ee Somaliland la siiya sanadkiiba waa ilaa 150 milyan lacagta marka lacagta adan ama waddanka dhex socota ee sabaysa ka eegto soo garmaysid shaqalaanta waddanka taalla way badan tahay waxaa lagu qiyaasay ilaa 27%. waxaan ognahay Somaliland maanta waxaan xoog loo saaraya waxa weeye Somaliland 22 inta sanadood bay dowladda ahayd oo ay jirtay marka waxa weeye waa in la dhex galo oo dadka la tuso bay Somaliland taagan tahay shaqalaanta Somaliland waxay taagan tahay maanta 27%. waa aad u sareysa waxaad ogtahay marka loo qiyaaso Soomaaliya wali loo qiyaaso in dadka badan baxaya jaacada ka baxaya cararaya badda galaya ay Somaliland aad u badan tahay wali burca iyo meesha loo qaadan booralaas oo badan taa marka haddii dadkii waddanka lafnabarka ah ay ka cararayaan oo basiyo meesha ku taala dadkaas waa dadkii mustaqbalkii waddanka weyn midda kale dowladda haddii aan kari karin oo aan awood u haynin in dhalinyarada subaxa jaacada ay qasiso anuu garanayo wax meesha ka joogaan waayahay waxaanu kusii siqaynaa gabagabadii barnaamijkeennii qaybihii ugu muhiimsanaa waxaad ka hadashay arrimo aada muhiim u ah dabcan dhaqaalaha soo gala haddii loo maareeyo sidii saxda ahaa mudane aadan waxaa la is oran kari lahaa wax badan bay wax ka tari lahayd laakiin dabcan waxaa jiro yani Africa waxay ka siman tahay musuqa iyo eexda iyo shaqo la'aanta iyo waxyaabo fara badan taasaana keenaysa aan oran kareynaa in dhaqaalaha inta leeg ee 250 milyan ama 250 milyan ee caalamku siiyo haddana sidii saxda ahayd aan looga faa'iideysan waayahay waxaanu ku sii guda jirnaa oo aan doonaynaa in waaya soo dhawow waxa weeyaan dadka horta marka hore waa inay fahmaan waxa weeye lacagtan iminka waddankan sheegaynay ahaa lacagta xawaalada lagu keeno iyo lacagtan kale ay dowladda ay macaamilada lagu fasiya labadaba waxaa intaas sii dheer dee lacagtan faraha badan markii dadku gudaha ay joogaan ay ku bixinayaan maxaa la dhahaa ay qaadka ku cunayaan Ethiopia la geenayo oo lacag fara badana waa 1 bilyan baa iminka dadka Soomaalida ah waxa lagu qiyaasaa lacagta ay kaga baxa qaadka ilaa 400 milyan dollar marka qayb ahaan loo qiyaaso Soomaaliya dee Soomaaliya inta ay marka ay kaga baxaysaa waa qaybaha ugu badan Ethiopia ka gelaysa teeda kaleeto dhibaatooyinka waxyaabaha haysta Soomaaliya maanta mushkilada haysta wax ka mid ah kitaaraha dhaqaalaha kusoo noqono lacagta meesha taala lacagta Soomaaliya bardada lacagtu lacag la ictiraafsiyo caalamka la geen kara maaha lacagta Soomaaliya inta qofku qaado dubay geen maayo lacagta Soomaaliya qofka intuu qaadana geen maayo
jabuuti geyn maayana etoobiya Ethiopia. marka waxaa noqonaysaa un lacag dee waraaqa iska cadoo sameynaya oo soconaya marka lacagta inta laga tago ima doolarkii waddanka laga saaraya marka lacagtii adkee doolarka waddanka ka baxaysa waraaqii ay marka meesha yaalla ee dadkii magacyada lacagta aan ictiraafsanayna meesha dhaaf mayso oo lacag waraaqa oo kale lama noqonaysa markaas taasi marka dhaawac kale oo dhaqaale ayaa meesha keenaysa waayahay haddii markaa ay dowladda somalilan ay ku doodeyso inayna ahayn dowlad la ictiraafsan yahay dabcan dowlad iyo dowladaan la ictiraafsanayn faraqa udhexeeya waynu garan karnaa lacagteeda haddiisan ahayn lacag adag oo etoobiya wadamada jaarka iyo wadamada carabta aan tegi karaynin shaqo la-aantii hadday boqolkiiba 72 tahay busuq badan wadankii uu jiro isku filnaansho aysan jirno warshado waaweyn iyo dhaqaalo wax soo saar badan aysan jirin waa maxay dadka marka doonayo la waan goosanaynaa xagee dadka u wadaan maadaama marka aad goosanayso ilaa waxa weeyaan col hortii hub samaysaa la yidhi xagee dadkan loo wadaa xagee dadkan loo masaafurinaya haddaana wixii dowladnimo ama ummad lagu hagi lahaa dhaqaale iyo siyaasadba aysan jirin xagee dadkan loo wadaa waad malayn kartaa waxaa weeye markay run laga hadlayo marka dowladaha ay kala goosanayaan ama soo gelayaan waa inay heshiis ku galaan waxaan ognahay dowladda soomaaliya inay mar walba taagan tahay midnimada doonaya halkaa waxaa ka cad markaas waxa goosashada meesha inaan imayn marka waxaa fiicnaan lahayd dadku inay fahmaan in waqti ay ka faa'iideysteen oo aanay waqti iska ciyaarin waddanku waa waddan dihin oo la maalgelin karo haddii waddanka markaas ay midnimada soomaaliya ama ay ka qayb qaadaan ama dee ay heshiis saxa la galaan safaaraddii bay helayaan maalgelintii waddanka helayaan bangiyada loo furaya laakiin sidaan imika ku jiraan imika maalin walba dadkii ay ku doodayaan shaqa la-aan baa jirta ama baddaan isu gurayna ama xaggan u carayna waxa weeye dhibaato meesha taalla oo baahan in siyaasad lagu xalliyo waayahay waxaan ku guda jirnaa weli barnaamijkii aynu caawa dhabka hadal kaga hadlaynay ahaa shirkii somalilan iyo soomaaliya ee dhawaan ku burburay turkiga shirkaas way ka horreeyeen 6 shir oo kale oo kala dhacay wadanka imaaraadka carabta jabuuti iyo wadankan ingiriiska aynu joogno weli waxaan ku guda jirnaa arrimahaasi ku salaysan maxaa u danaa labada dhan waana soo gabagabanaynaa qaybaheena ugu dambaysa bulshadan ku jirnaa arrimaha bulshada markaanu ka helano dhaqan iyo dhaqaale dadka ku dhaqan soomaaliya iyo saad sheegtay iyo shanta soomaaliyeed waxaa la yidhahdaa waa dhal iyo dhasheed waa inan iyo abtigii waa gabar iyo gayaankeed waa wiil iyo sodohdii waa dad is wada dhalay dabcan gumaystihii laakiin 5 qaybood ayuu u kala saaray shantaa wasladood laftoodii baa sii qaybsamay labadii midoobay baa haddana dib u kala fadhiistay aynu dib ugu soo noqono gobolada waqooyi iyaga laftoodaa kala fadhiya haddii marka ay jiraan dad gobolada waqooyi u dhashay oo taagan midnimada soomaaliya aan doonaynaa kuwana ay leeyihiin midnimo ma doonayna inaan goosanaan doonaynaa kuwa goosanayana aysan dadka geediga meelay u wadaan oo sax aysan jirin maxaa u dan ah dhalinyarada ku dhaqan gobolada waqooyi ee aad sheegtay bilaa camalka ee iskuullada ka soo baxaya ee xaafadaha isdul tuulan ee aan nolol kale iyo maareyn kale aan haysan ee nin walba gurigii kusoo noqonayo hooyadii lahoxo dib ugu qabsanayo dhalinyaradaasi maxaa la gudboon ayatiinkoodas muxuu yahay horta wax walba waxaa lagu hadlaya siyaasad siyaasadda dhaqaalaha isku xidhan haddii ay kaa qaloocato siyaasaddu dhaqaaluhu kaa qaloocmaya total way isku xidhan yihiinba madaxweynaha maqashada ama ninka waddanka ku sarreeyana waxyaabaha mas-uuliyad ka saaran yahay waddanka ka saaran oo uu loo baahay inuu xaliyo waxaa ka mid ah shaqa la-aanta hadduu madaxweynaha shaqa la-aanta xallin kari waayo waa inuu ka dega meesha waxa weeyaan dadkii shaqa la-aanta wax meel 7 maraysa waddankiina dadkii shaqa ma siin kara leeyahay waxa meesha ka fadhiya markaas dadki marka wayna fahmaan meesha dhibaato ka jirtaa meesha tahay waxaan lagu sheekeynaya 5 sanadooda waa halkan ka dhowdaan inaanay soconaynin nin walba u arkaya runta see tahay waa in loo taabto haddii marka aan dib u noqdo waa somaliland soo qaato ama waqooyi soomaaliya waxa weeyaan dad badan baa qoranaya dadka lagu soo bata waddankii haddii rag laga hadlo dadka kusoo badanaya waddanka xagee ka yimaadeen oo gobolladii la odhan jiray hawdki ee 1948 habashada Ethiopia la siiyey dadkii markay arkeen dee walaalahoodii soomaalinimada doonayay aqoonta lahaa inay gaar u cararayaan ba iyagina soo carareen markaas waddanka kusoo cadhiyeen marka Jabuuti lafteeda marka 700 milyan lagu leeyahay 700 kun lagu leeyahay dadkii deganaa dirnaba meelahaas dadkooda deganaayeen ayaa markay dad gumaysigu adkaysan kari waayeen ayay soo carareen marka haddaad weliga allah runta ka cararto oo aad runta maaragtay abaari weydo de waxay runtii waa kusoo abaaraysa marka dadkii laga soo cararay baa waddankii soo bixiyey soo cararay marka arrinta waxaa maanta in lagu xaliyo hal siyaasad loo helo waayahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena in caawa kaga hadlaynay dhabka hadal oo aanu ku soo qaadanay shirkii dhowaan ka qubsoomay ama ku burburayba dalka turkiga kaasoo u dhexeeyay maamulka la baxay somaliland iyo soomaaliya barnaamijka waxaa idin daadaynaya anigoo faysal cabdullaahi xaaji cabdi kuna magac dheer afrone waxaa igala qayb qaatay oo inta badan barnaamijka kusoo dabariday aqoon-yahan aadan jaamac kaahin xagga farsamada waxaa naga caawiyey inanka da-da yar ee axmed yare
inta aan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leenahay fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu